Samadoon Saciid Cilmi oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Ceergaabo ayaa ugu horeynba ka hadlay xaaladda guud ee gobolka Sanaag. Ambaliyada bogaadin u diraya dhammaan ergooyinkii ka qayb galay nabadeyntii Celifweyn haday wadaad tahay haday xukuumad tahay iyo haday tahay culimo haday tahay cuqaal dhammaan way mahadsan yihiin Ilaahay ajar iyo miisaan xasanaadka idin ku daro nabadaad ka dhalisaan waxaan kaloo mar labaad iyo mar saddexaad baan hambalyeynaya beelihii walaalaha ahaa ee shaqadu ku dhexmartay muddada badan soo jiitamaysay ee soo afjaray waxaan aadan ugu faraxsanahay markaan dhex tagay soo dhexmaray sida ay beelahaasi nabadii u hirgeliyeen sida ay maanta u wada joogaan waxaan leeyahay intaa iyo in ka sii badan sii wada sidoo kale Samadoon Saciid oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay hadalka soo yeeray madax dhaqameedkaasi oo ku aadanaa colaadii Celifweyn waxa dhacday shalay iyo daraad kelmado soo baxbaxayay oo ku saabsanaa mar odayaal ay ka hadlayeen niman xidhan kelmad baa ku jirtay ahayd nabadda Celifweyn hadalkaas waxaan arkaa hadal gaf ah oo qadaf ah nabadda Celifweyn inta taaban kartaa ma jirto cid soo hadal qaadi kartaa ma jirto Saciid Cilmi waxa uu baaq u diray xukuumadda Soomaaliland uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isagoona sheegay in la xalliyo tabashada ay qabaan dadka reer Soomaaliland madaxweynaha waxaan ugu baaqayaa madaxweyne Axmed Cadiib wuxuu ahaa mujaahid ka mid ah mujaahidiintii dalka u soo halgantay dadaal iyo juhdi badanna gelisay sidii dalkan maanta nabadda loogu noolaanayo ay nabad noqon lahayd isagii ragga la xidhan waxa habboon inay cadaaladda la horgeeyo ama xorriyadoodii loo soo celiyo madaxweyne marar badan oo hadasho waxaad ku baaqdaatay isu tanaasul dalkan wuxuu ku soo gaadhay horumar iyo nabadan iyo halkan wuxuu ku soo gaadhnay isu tanaasul isqabasho iscelin haddana madaxweyne kama muuqato xukuumaddaada mar kasta oo hadla wasiir ka mid ah wasiiradaadu waxay ku hadlaan hadal cunfi leh hadal sii fogeynaya saraakiisha carootay iyo odayaasha la socotaba madaxweyne waxaynu u baahannahay inagoo hal ah oo isku mid ah in tanaasul la muujiyo geel cokan iyo geel ooman waxa lagu ciiraa geel cokan waxa jirta suldaan ka mid ah salaadiinta burco suldaan maxamed muuse cune oo isaguna 3 bilood u xidhan arrimaha qaybtada cadaalad ma hortagin suldaankaasi waa xanuunsanayaa suldaanka madaxweyne ama hal horgeeyo maxkamadaha ama la soo daayo gabagabadina Samadoon Saciid Cilmi ayaa ka hadlay gaari ambalaas oo ay lahayd degmada Xiis isla markaasina sida la sheegayo u tallaabay goobta ay ku sugan yihiin ciidanka uu hogaaminayo Generaal Carre waxaanu yiri mar walba nabad baan u taaganahay ummaddu nabad bay rabtaa dalka iyo dadkuna nabad bay ku wada noqonayaan arrin yar oo fool xun baa shalay dhacday inamo yar oo aqligoodu aanu ku filayn ayaa gaari ay maydeen dhacay gaarigaas waxa la hayd degmada Xiis bulshadu u adeeg jiray gaari ambalaas buu ahaa runtii wuu tallaabay wada hadal dheer ka bacdi waxaanu rajaynaynaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan gaarigaas oo wixii la yeelayba inuu soo noqon doono waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada yaryar iyo dhammaan bulshada reer Ceergaabo inaynu isu taagno wanaagga inaynu iska ilaalino wax kasta cunfiga keenaya isu tanaasul iyo horumarka u midowno ayaan soo jeedinaya degmada Xiis iyo beelaha ku nool iyo dadka ku nool waa dad goba waxa leeyahay arrintaas arrin qabata meesha ma aysan ahayn bulshadu gaarigaas u adeegi jiray gaarigaasna wuu imanaya Barkhad Maxamuud Geedi Bulsho TV magaalada Ceergaabo.